اعترافكي سومالي لانه سو دhowaad la kartaan yaa loo kala harin leeyahay reer Minnesota Somaliland way soo danjirsatay qaran waliba xarakiyo xafladiyo astaan iyo xilliba u gaaree xuskamey u soo baxa xurmeeyo dabaaldega guud ahaanba waxa la ogeysiinayaa bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan North America gaar ahaan Minnesota iyo nawaaxigeeda inay u diyaar garoobaan munaasabadii ballaarnayd ee xuska 18 May maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland oo sanadkan si weyn loo xusi doono wacdarihii sanadkii 2014 15 mar kale waxaan kugu baaqaynaa madal kale oo ballaadhan community-gu waxa uu ku ogeysiinayaa kuguna bishaaraynaya in xafladii ugu ballaarnayd ee lagu xuso 18 May ee ka dhacda Mareykanka ay sanadkan ku diyaariyeen waxaan rabaa halkan inaan ka ogeysiino bulshooyinta ku dhaqan Minnesota inay nagu soo fool leedahay xafladii 18 May soddon guuradii magaranayay Somaliland dabaaldega 18 May ee ka soo wareegtay sanad guuradii soddonaad ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaa la nagala soo qayb gala wixii warfaafaahin oo faan uga baahataana sabtaarka kala socda maxaa idin leenahay mar dhow waxaan ugu soo foodleh xafladeeni 18 May taariikhda abwaanka noo sheegayo iyo waqtiga ay tahay iyo meesha ay tahay Chicago Mall sabtida 15 May weeye laga soo qayb galo fanaaniinta way joogtaa aqal waa ciid mubaarak waa dabaaldegi waa maaragtay dhalashadii Somaliland walaalahay horta u sii hambalyeynaa waxa leenahay hambalyo sida aan sanad walba ugu hambalyeyn jirnay baan hadana hambalyada ugu direynaa maalintan ku xurinay gorama isku ogaamay raaku casuumi culimadu ducaysa ala xumunadiis waxaan rabaa in aan bushaareeyo xafladii 18 May in ay dhacayso oo ay ka dhacayso Minnesota Minneapolis Chicago Mall sanad guuradii soddonaad oo dhici doonta bisha 15keeda waxaan aad idinka codsanaynaa ka soo qayb gashaan happy 18 May dhamaantiin habeen aad u mug weyn soddon guurada May iyo reer Minnesota la isarki doonay dhammaantiiba waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanad guuro wanaagsan caasimadda iyo gobolada Somaliland oo si weyn looga dabaaldegi jiray sanadkan waxa lagu hawlan yahay sidii looga soo kaban lahaa dhaawacii abaaruhu gaarsiiyeen dalka dawladuna waxay go'aamisay in dhaqaalihii ku bixi jiray xuska 18 May sanadkan loogu gurmado sidii ay dadka miyigu uga soo kaban lahaayeen khasaarihii abaaraha sidaa darteed xuska 18 May 2021 waxa uu ku kaliyahay qurba joogta reer Somaliland haddaba muwaadin ismuuji oo dareenkaaga iyo dawladnimadaadaba dunida u muuji Somaliland horumarto meeshaan rabno fanaaniintii loogu jeclaa abwaanadii diijiyadii madaxdii xisbiyada qaranka iyo tajaaliyada ayaa sanadkan ku martiya heeso cusub oo wadaniya ayaa dhagahaga culi doona majaajilooyinkii iyo qosolkii ayaan iyaguna ka maqnayn haddaba moogaan xuska 18 May ee sanadkan 2021 oo ka dhici doona Chicago Mall habeenka sabtida ee 15 bisha May qiimuhu waa $30 oo kaliya haddaba moogaan hana ka maqnaan xuska qarankaaga soo qaado calankaaga wixii faahfaahinayta dheeraadana kala telefoonada shaashada hortaada ka muuqda balanteenu waa 15 bisha iyo Chicago Mall